marka dadkiina la tashato intaba waxay ku adeey waxay ku tahay wax wanaagsan laakiin marka raasina dad la tashato ama wax qabsanahay waxa muhiim marka inaad dhowr qofood oo kala duwan aad iska ilaaliso bil kulliyan hadda wixii ka dambeeyo wax walba oo sameynado lixda dad tilmaamahan leeyahay ama ay oo wada wadaago waxana la tashan waxana ku darsan salaanta la idinka dhaxaysa kaliya macnaheedu ma inaan isku dir aan ka wado oo dad gooyay ma waa inay tahay si barnaamijkaada ku hirgalo talada aad u baahan tahay waa in lixdan qof aad ka fogeyso bil kulliyan ummadaha kale ee wanaagsan akhyaarta wax ku darso kan koowaad oo muhiim ay tahay inaadan waxba kala tashanin waxa aad rabto jaahilka ah majaal waxbarasho ku jirta arrimahaas waxbarashada rabta jaamacada u baahan tahay in wax laga la taliyo kulliyad u baahan tahay in wax laga ama ganacsi nooc rab ha noqdo qof aan waxaas waxba ka garanaynin oo weligii soo tajribeeynin oo tijaabada soo marin ama ku soo fashilmin ama ku soo guuleysanin wax aqoon oo leeyahay jirin qofka si waxba kala tashanin marka kuwaad intaadan talada iyo waxda awgeed marka horta fiiri hadda waxa ka jaalisan yahay gibiga damba kor uga bax ana la tashanin kan labaad waa qofka cadowga inaad la tashatahay waa mamnuuc tilmaamaha ku gara doonto qaarkood waan ka soo hadalnay xalaqaadkii hore nooga horreeyay ku jireen qaarna waan ka hadli doonaa hadii ilaahaymo qofka cadowga qof fiican maaha agba oo la tagaysa si qalbi nadiif ah oo la hadlaysa war waxaan ka warna dhaysa war meesha hadaan aadna ka warna dhaysa waxa ba yaraatee hool yar aad damacsan tahay aad la wadaagtahay asiga wuxuu isku dayaa sida barnaamijkaas oo kaaga kansali lahay ama aad u gali lahayd laakiin aad ku fashilmi lahayd kaasina waxba lagu ma darsado kan saddexaad oo waxba lagu darsanin ee talada ku jirta waxay ahayd oo cadawgana ka dawdhow ka xaasidka qof xaasid ah farxadaada waa dhibaysaa wanaagaada waa dhibaa murugtaada wuu farxa gelinaysaa maanta dad ka dhinto murugaysan asoo farxa haddii dad ku dhashaan ama guursato ama mustaqbal yeelato waa ka naxa marnaba wax aad kugu saabsan oo wanaaga oo asiga la jecel yahay ma jirto waxaan qaarkood xataa ma balaanba sabab ay ku nacam balaanba xataa isma taqaanaan ismaadin arkin ismaadin maqan hase yeeshee haddana waxaas dhan kuma jirto laana waxaa kala weyn cuqdada ku jirto baas iyo waan iska nacay iyo waxyaabaha hadda waayadan badan oo la leeyahay qof dhahayo kale waxaas jinkiga iska nacay waxaas waa dulmi weeyaan taasina ma fiicno qofkaas noocaas oo kala markay ama aad ka dareen tahay ayadana waxay noqonaysaa inaad ka fogaato waxna aadan ku darsanin hadda waxa ku darsanin qof jaahil waxaas ka aan la soconin waxaan kaloo soo sheegnay qof wax ku darsanin qof xaasidna ku darsanin kan afraad oo la rabo inaad isna ka fogaatid waa qofka istutuska badan qofka rabo in dadka arkaan in la yiraahdo wuxuu leeyahay in la dhaho waa nin saan ah wax buu qabsaday wax qof adiga waxa jira oo mar walba jecel istuso saadarteed waxyaabo fara badan oo tala aad la wadiisan lahayd wuxuu ku dabaqa dadkaas fadhiyo kan inta waay kan inta ka يعني قفك النوع عاصو كلاوان الدريم كرتا مركي مجلس كو ماضي أسيق وحو جعلي إنو يرادو أنيقا سمي أنيقا أنت كبحي هدي الله فشل منه أسيما وكو جرب نبدأ إعداز وكو مجرب بناكو كيه قفك النوع عاصو كلانا إسوسو كبضنا وحلقو مدرسة وحنا لما وديستو كان كلاوان تلاد إن لو وديستا إيسان هبونين وقفك فوليقا فوليقا تلاه وديسانين maxaa yeelay wax walba cabsida ugu horeyso tilaabada rafadida soo ka cabsana meeshan dib way meeshan aan gaarin hada tiraas wuxuu arkaa musiibo halkan soo mujeedaha laba shal lagu dilay halkan soo mujeedaha shaladada lagu xiray halkan soo mujeedaha wax wayaraatay meel kasta cabsi inta aadin hada tira ku leeyahay maya anaga inta joogin jirnay inta dhaxal awyaashin jireen meeshan dad ka bax manihin ama waxaan wax qabsada manihin ama shaqada ma badnaqaan waxa weeyaraata asiga cabsi wax jirto oo joogto ah qofku noocaasina waxa wala lama tashto kan lixaad oo asina muhiim ah taa inaadan tala weydiisanin waa qofka bakhiilka ah maxaa ula jeeda bakhiilka حتى qofku inuu naftiisa wax ka bakhiilo eelkiisa wax ka bakhiilo waaridkiisa wax ka bakhiilo
walaalkiis wax kala baqiilo wax kale iska dhaafee asiga xataa waxba isku qiimo oo maanta tahay hal kaniini oo madax xanuun xataa kuma soo gadan karo waxaasna wuxuu arkaa wax fara badan adigiina waxa ka hadlaysaa wax waaweyn mashruucyo waaweyn waxaa la haygsanaysaa waxaan cimriga ilaahay baahaye mustaqbal dheer baad haygsanaysaa waxaas leedahay dadka kaa dambeeyo ama adi awlaadaad ha noqdaan ama islaamka ha noqdo ummadaha guud ha noqoto bini'aadam wax ummadda ka dambaysa ee nafcinayso kale baa adiga kala tashanay asigii waa dhibe ceel meeshan ka qodo kale adiga wax ku nafcinay waalidka usoo kartaa dadka ka magaalada anfici kartaa ina wax barato sidoo kale wax walba oo waxa jiro oo wanaag ama si wax ku bixi karo qof baqiir ah kala tashanin intaas lixdaas qofood oo ana iska ilaaliso